salaadiin iyo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee aan matalaada ku lahayn labada aqal ee Soomaaliya ay kaga hadleen arrimo la xiriira xuquuqda beelahaasi iyo sida muhiimka ay u tahay in beelahani ay helaan matalaad rasmi ah oo ay ku yeeshaan labada aqal ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ee Soomaaliya ayna baaq u aadan arintani si wadajir ah ugu direen. waxaan ka mid ahay 30 oday ee haawi ugu jirta 135 ee dawladdu waa soo xuleen liiri waxaan nahay odayga kaliya oo markii la yiraahdo 135 aan ku jiro haddana aan lahayn xildhibaan waxay taa ku muujinaysaa cadaalad xumada ka jirta baarlamaanka jiro waxa la leeyahay baarlamaanku waa loo dhan yahay haddii loo dhan yahay kuwan Soomaali ma ahan miyaa ayaga caalamka waxaan u sheegaynaa oo adduunka u sheegaynaa inaan loo dhameyn baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka maqan yihiin beelo Soomaaliya oo ay dulman yihiin intaan markaan nahay beelood ciidan aan leenahay dhimashada ay wax ku leeyihiin dheefta wax kuma laha ma dalacaan ciidankayna shaqaale ma lihin danjire ma lihin safiir ma lihin agaasimo guud ma lihin wax allaale wax aan dawladda jirto oo la sheega aan ku leenahay haba yaraatay ma jirto saadaradeed waxaan codsanayaa inay madaxda qaranka ay noqdaan dad cadaalad ah waxa ugu weyn Soomaaliya baabi'iyay barta ay taala dhigay dawlad kasto timaadana ay la dhaqaaqi weysay waxay tahay asalka shay cadaalad darro ah dadkan waxay tirsanayaan beelahan aan ka midnahay cadaalad darro waxay ka tirsanayaan mar kastaba ku sameeyo beelahooda waxaana gacan siiyo mas'uul kasta oo markaas dalka hogaaminayo ma ahan dawladda waa in ay xal keentaa xal in la keeno baarlamaankii sagaalaad mooshin la geeyay kan hadda joogan mooshinka waa dhex yaala mooshinka labada mooshin oo isku xiran way dhex yaalin waxa la rabo waxay tahay intaas aan xuquuqdeena helno kana helno dawladda dhexe ma ahan mataqaanaa sadbursi waa nala sadbursaday waxana laga sadbursaday madax ahaan soo celiya haddii dawladda ay samayso cadaalad darro dadkan ilaahay leeyihiin iiga xasan sheekh oo shalay nagu tuntay alla meesha ka saaray farmaajo hadduu cadaalad sameey waayo oo baxa ilaahay idinkiisa maxaan Soomaali ku nahay Soomaali meesha maraysa daanan maraynin maxaan Soomaali ku ahay Soomaali mani أما هاد ودن كله هاد نوع إنسان نجيا ما يحقنا نسيا حق بانو لنا هاي حقنا وإن هلنا هذا ما أنت أرديجي أو مارتا قلنجبية جامعة كقلنجبية ما لانجين أنا الحين وبناك نوجو خرجنا نوجبحي ما حد سوامالي كل شيء كنا سوامالي تصلها أم بعد سنة هدان هاي بيلها ظلمن إن أدولن كاس واحد نقابة خاصهان مدحوينها جمهورية فدرالكا إيوه قدوميها بارلمانكا إيوه قدوميها بارلمانكا أغل كسارة رئيس الوزراء أنت مدح وإن أدفنك كعدان أنا كقوين أنا كوحق له يا تاس إن لنا بحيو إن مارتا حقين للنسيو waxa la kaga fadhiya cadaalad hadeen cadaalad sameyn farmaajo waxa kugu dhici doona wixii xasasho ku dhacay maanta doorashada maanta ka horeysa 220 xildhibaan isku haleynay garabkiisa ilaahay ka saaray qulubtooda warrabay ilaahay adigana waxa ku sheegaynaa haddaad cadaalad daradii aad ninkaas maray aad marto hadee ilaahay asaga kaama jecla kaama nibca waa wala mid ah tahay qofka dulma sameeyay ilaahay garab noqon maayo maamulka gobolka Banaadir finish waa ogyahay gobolka Banaadir dadka dhisay oo ugu horeeyay oo mataqaana magaalada wax ka dhisay ugu soo kamid yihiin shabeellaha hoose waa deganahay midna kale lafta gareen intaas oo maamulkooda aan deganahay wax xuquuq oo aan wali ku hayno waxa ka jira labada maamul goboleed oo Galmudug iyo Hirshabeelle aan ku leenahay maamul goboleedyo kuraas ayadana hadda nala ku haysto oo midkii Hirshabeelle soo socda qof aan shaqo ku lahayn xildhibaan qarana uu rabo inuu xog nooga qaado marka insha Allah waa rajeynaya insha Allah beesha caalamka inay wax ka qaban doonto waxaan ka codsanaynaa madaxda haddii in yar oo damiir ah ay leeyihiin in yar oo damiir ah in yar oo damiir oo Soomaalinimo oo ummadnimo haday leeyihiin oo islaamnimo oo Soomaalinimo oo muslimnimo haday leeyihiin ummadda cadaalad ha u horseedeen
inta maalmood aad joogtid waa maalmo koobane niyahow ilaaha inta ka baqdid ummadaas cadaalad u horseed حتى هلقا ديدو لكن أديكو اسكو داي beelahan waa la dulmay waxa dulmay maamul goboleedyada waxa dulmay dawladda dhexe waxa dulmay baarlamaanka madaxda wadanka joogto oo maanta joogto waxaan u sheegayaa damiir ma bilin haday wax damiir ku jiro waxaan u sheegayaa dadka inay cadaalad faraan hadii ay dadkan Soomaali ahayn oo Soomaalinimo iyo shaqo ku leeyna meesha ay deegaan ku leeyeen dadkooda aad jir in loo raro mudanayaal madaxda sharafta leh iyo dhammaan international community beesha caalamka waxay ka cabanayaan beelahan Soomaaliyeed ee magacyadooda hoos ku xusan yihiin in aysan dalka ku lahayn wax matalaad ah wax xuquuq ah ayna ku dulman yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka dawladda sida baarlamaanada aqalka sare aqalka hoose sida fulinta xukuumadda dhammaan qaybaheeda kala duwan waxayna kaliin beelaha magacyadooda hoos ku qoran waxay hortoora ka kooban yihiin beelahan 4.5 ayay ka kooban yihiin ama 5 beelood ee Soomaaliya ma hal beel kaliya waxa ugu horeeya beesha Dagoodiye beesha Xaskul Hawiye beesha Armo ee Digil beesha Iroole ee Digil beesha Ahmed Faarax Surre ee Dir beesha Abdi Kumade ee Gelimeys iyo sida kale waxaan ka tagnay maandhawto ayana aan halmaan hadal kuma jiro beesha Abaasguul beesha Faacyo beesha Kaboole ee ayagana beesha Shanaad ee Jireer Weyne ah beesha Weyteen dhammaan beelahan ka kooban beelahan Soomaaliyeed ee ku dulman matalaada Soomaaliya waxaan soo jeedinaynaa koow in la furo qodobka 64aad farqadiisa labaad ee sheegaysa tirada baarlamaanka in uu yahay 275 si beelahan aan matalaada lahayn loogu daro hataa 30 xubnood ama hal hadii la heli kara hataa baarlamaanka labada aqal waxaan ka codsanaynaa in ay furaan aqalka hoose ayna buuxiyaan 4.5 ay ka dhigaan 5 beelood oo siman ayna beelahan ku kabaan si kastaba ma ahan markii ugu horeysay oo ay cabasho muujiyaan beelahan waxayse ku soo beegmaysaa iyadoo baarlamaanka Soomaaliya ay meelmariyeen matalaad uu yeesho gobolka Banaadir isla markaana suuragal ay tahay in dastuurka ku meel gaarka ah la furo si xubnaha aqalka sare ay u noqdaan 67 xubnood Anisa Cabdi Xuseen kulankan ay Muqdisho ku yeesheen salaadiin iyo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee aan matalaada ku lahayn labada aqal ee Soomaaliya ay kaga hadleen arrimo la xiriira xuquuqda beelahaasi iyo sida muhiimka ay u tahay in beelahani ay helaan matalaad rasmi ah oo ay ku yeeshaan labada aqal ee Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ee Soomaaliya ayna baaq u aadan arintani si wadajir ah ugu direen waxaan ka mid ahay 30 oday ee haawi ugu jirta 135 ee dawladdu waa soo xuleen leeyahay waxaan nahay odayga kaliya oo markii la yiraahdo 135 aan ku jiro haddana aan lahayn xildhibaan waxay taa ku muujinaysaa cadaalad xumada ka jirta baarlamaanka jiro waxa la leeyahay baarlamaanku waa loo dhan yahay haddii loo dhan yahay kuwan Soomaali ma ahmi ayag caalamku waxaan u sheegaynaa oo adduunku u sheegaynaa inaan loo dhameen baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka maqan yihiin beelo Soomaaliya oo ay dulman yihiin intaan markaan nahay beelood ciidan aan leenahay dhimashada ay wax ku leeyihiin dheefta wax kuma laha ma dalacaan ciidankayna shaqaale ma lihin danjire ma lihin safiir ma lihin agaasimo guud ma lihin wax allaali wax aan dawladda jirto oo la sheegay aan ku leenahay haba yaraatay ma jirto saadaradeed waxaan codsanayaa inay madaxda qaranka ay noqdaan dad cadaalad ah waxa ugu weyn Soomaaliya baabi'iyay barta ay taala dhigay dawlad kasto timaadana ay la dhaqaaqi weysay waxay tahay asalka shay cadaalad darro ah dadkan waxay tirsanayaan beelahan aan ka midnahay cadaalad darro waxay ka tirsanayaan mar kastaba ku sameeyo beelahooda waxaana gacan siiyo mas'uul kasta oo markaas dalka hogaaminayo ma ahan dawladda waa in ay xal keentaa xal in la keeno baarlamaankii 9aad mooshin la geeyay kan hadda joogan mooshinka waa dhex yaala mooshinka labada mooshin oo isku xiran way dhex yaalin
waxa la rabo waxay tahay intaas aan xuquuqdeenna helno kana helno dawladda dhexe ma ahan mataqaanaa sadbursi waa nala sadbursaday waxa nalaga sadbursaday madax ahaan soo celiya haddii dawladda ay samayso cadaalad darro dadkan ilaahay leeyihiin iiga xasan sheekh oo shalay nagu tuntay alla meesha ka saaray farmaajo hadduu cadaalad sameey waayo oo baxaa ilaahay idinkiisa maxaan Soomaali ku nahay Soomaali meesha maraysa daanan maraynin maxaan Soomaali ku ahay Soomaali mani amal had wadan kale hadaad noo haysaan geeya ma ya xaqeena nasiya xaq baanu leenahay xaqeena waa inaan helnaa hadaa maanta ardaygii oo maarata qalan jibiyay jaamacad ka qalan jibiyay meel aan geen aan lahayn oo banaanka noo joogo qarashna nagu baxay maxaan Soomaali ku sheeganaa Soomaaliyay sallaha amba codsanayna hadaan nahay beelaha dulman in aad dulunkaas wax noo qabatid khaas ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare ra'iisul wasaaraha intii madax waa inaad fadhiga ka kacdaan anaka qaween anaka wax leh ya taas in la naga bixiyo in maarata xaqeena lana siiyo waxa la kaga fadhiyaa cadaalad haddeen cadaalad samayn farmaajo waxa kugu dhici doona wixii xasashiyo ku dhacay maanta doorashada maanta ka horeysa 220 xildhibaan isku haleynay garabkiisa ilaahay ka saaray qulubtooda waa rogay ilaahay adigana waxaan ku sheegaynaa haddaad cadaalad daradii aad ninkaas maray aad marto haddee ilaahay asaga kaama jecla kaama nibca waa ula mid tahay qofka dulma sameeya ilaahay garab noqon maayo maamulka gobolka banaadir finish waa ogyahay gobolka banaadir dadkaas dadka dhisay oo ugu horeeyay oo mataqaana magaalada wax ka dhisay ugu soo kamid yihiin shabeellaha hoose waa deganahay midna kale lafta gareen intaas oo maamul gobolka aan deganahay wax xuquuq oo aan wali ku hayno waxa ka jira labada maamul goboleed oo galmudug iyo hirshabeelle aan ku leenahay maamul goboleedyo kuraas ayadana hadda nala ku haysto oo midkii hirshabeelle soo socda qof aan shaqo ku lahayn xildhibaan qarana uu raba inuu xog nooga qaado marka insha Allah waa rajaynayaa insha Allah beesha caalamka inay wax ka qaban doonto waxaan ka codsanaynaa madaxda haddii in yar oo damiir ah ay leeyihiin in yar oo damiir ah in yar oo damiir oo Soomaalinimo oo ummadnimo haday leeyihiin oo islaamnimo oo Soomaalinimo oo muslimnimo haday leeyihiin ummadda cadaalad ha horseedeen ummadda cadaalad ha horseedeen inta maalmood aad joogtid waa maalmo kooban niyahow ilaahay inta ka baqdid ummaddaas cadaalad u horseed hatta ha laga diido laakiin adigu isku day beelahan waa la dulmay waxa dulmay maamul goboleedyada waxa dulmay dawladda dhexe waxa dulmay baarlamaanka madaxda wadanka joogto oo maanta joogto waxaan u sheegayaa damiir ma bilin haday wax damiir ku jiro waxaan u sheegayaa dadka inay cadaalad falaan haddii ay dadkan Soomaali ahayn oo Soomaalinimo iyo shaqo ku leeyna meesha ay deegaan ku leeyeen dadkooda aad jir in loo raro mudanayaal madaxda sharafta leh iyo dhammaan international community beesha caalamka waxay ka cabanayaan beelahan Soomaaliyeed ee magacyadooda hoos ku xusan yihiin in aysan dalka ku lahayn wax matalaad ah wax xuquuq ah ayna ku dulman yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka dawladda sida baarlamaanada aqalka sare iyo aqalka hoose sida fulinta xukuumadda dhammaan qaybaheeda kala duwan waxayna kaliin beelaha magacyadooda hoos ku qoran waxay hortoora ka kooban yihiin beelahan 4.5 ayay ka kooban yihiin ama 5 beelood ee Soomaaliya ma aha hal beel kaliya waxa ugu horeeya beesha Dagoodiye beesha Xaskul Hawiye beesha Carmo ee Digil beesha Iroole ee Digil beesha Axmed Faarax Surre ee Dir beesha Abdi Kumade ee Gelimeys iyo sida kale waxaan ka tagnay maandhaweeto ayana aan halmaan hadal kuma jiro beesha Abaasguul beesha Faacyo beesha Kaboole ee ayagana beesha shanaad ee Jireerweyne ah beesha Weyteen dhammaan beelahan ka kooban beelahan Soomaaliyeed ee ku dulman matalaada Soomaaliya waxaan soo jeedinaynaa koow in la furo qodobka 64aad farqadiisa labaad ee sheegaysa tirada baarlamaanka in uu yahay 275 si beelahan aan matalaada lahayn loogu daro hataa 30 xubnood ama hal hadii la heli kara hataa
baarlamaanka labada aqal waxaan ka codsanaynaa in ay furaan aqalka hoose ayna buuxiyaan 4.5 ay ka dhigaan 5 beelood oo siman ayna beelahan ku kabaan. si kastaba ma ahan markii ugu horeysay oo ay cabasho muujiyaan beelahan, waxayse ku soo beegmaysaa iyadoo baarlamaanka Soomaaliya ay meelmariyeen matalaad uu yeesho gobolka Banaadir, isla markaana suuragal ay tahay in dastuurka ku meel gaarka ah la furo si xubnaha aqalka sare